odayaasha dhaqanka magaalada Buuhoodle ayaa maanta ka hadlay colaadihii ka dhacay Kalshaale iyo dhibaatooyinka xoogan ee halkaasi ka taagan waxaana guud ahaan ay sheegeen sida ay muhiim u tahay in dhibaatooyinkaas iyo colaadahaasi loo soo afjaro. warkan waxaa magaalada Buuhoodle ka soo diray Khadar Cawil Ismaaciil. gaal khasaare geystay oo maalintii shalay ka dhacay deegaanada Hagoogan ee Meygaagle iyo agaga deegaanka Kalshaale ayaa galabta waxaa shir arrintaasi lagaga hadlay magaalada Buuhoodle ku yeeshay waxgaradka iyo odayaasha gobolka Cayn. odayaasha maanta shirka yeeshay ayaa dagaalkii shalay ka dhacay deegaanadaasi iyo kuwii ka horeeyayba ku eedeeyay Somaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha guurtida oo ay tilmaameen in ay ka dambeeyeen qoditaanka baraagaha laga qoday deegaanada Kalshaale oo ay fidnadu ka bilaabatay sida ay hadalka u dhigeen. caaqil maxamuud xaaji cumar camay oo shir jaraa'id qabtay kadib shirkii odayaashu yeesheen ayaa ka warbixiyay dagaalada ka soconaya deegaanada hoos yimaada gobolka Cayn iyo ujeedada ka dambaysa dagaaladaasi. marka ugu horeysa arrintan in badan bay soo jiitamaysay in badan baan nabad ka shaqeynay. waxaa jiray shir xareeranka la isugu tagay nabadeed, waxaa jiray shir ka dambeeyay oo Qorlugud, waxaa ka dambeeyay mid dambe oo Kalshaale ah, waxaa ka dambeeyay kii weynaa ee Meygaagle oo ilaa 200 oo kun ku baxday. intaa waxa aan wadnay aan daba soconay waxay ahayd nabad. waxaanu idan nabad jecel oo had iyo goor nabadda ilaaliya. waxaad moodaa nabadda anagu aanu doonayno inaan maamulka markaa sidaa daraaddeed nabaddii aanu ka shaqaynay way burburtay. dagaalo badan baa dhacay, kii shalay ugu dambeeyey dagaalkaa dhibaato badan baa ka dhacday. marka anigu waxaan keliya oo aan idiin sheegayo dadku xor weeye. qoladan SNMT ama madaxweynaheedu wuxuu leeyahay waxaan samaynayaa inaan soo taabto ama yoocada ama xuduudda soo xidho. waxaa ka maqan dadku inuu dalka kala degan yahay, qoloba meel ilaahay ku ogaa. ingiriiska xitaa markuu joogay inuu jiray naqshad dadku kala leeyahay oo qolo waliba meesha ay leedahay ay jiri jirtay. annaga labidaa ugu baalayn jirtay. xaggaana waxaa ceergaabay kaga joogtay, xaggan xigtay. intaas dalkan annagaa lahayn, dadkoo dhan baa noogaa, ingiriiskii baa noogaa. sidoo kale caaqilka ayaa ka hadlay hadal ay warbaahinta ka sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan Somaliland kaasi oo ku aadanaa in deegaanadaasi ay ka dagaalamayaan waxa ay ugu yeedheen kooxo nabadiid ah. caaqilka ayaa arrintaasi iska fogeeyey, waxa uuna sheegay in dagaalka ay ku jiraan dadka shacabka ah ee gobolka Cayn kuwaasi oo uu sheegay inay difaacayaan deegaanadooda sida uu hadalka u dhigay. dagaalamaysa shalayna waa sheegay, haddana waa sheegay. waxaa dagaalamaya dad shacaba oo dhulbahanta ah oo aan cid kale wehelin oo meesha waxaa la leeyahay dad yani urur iyo waxbaa la sheegayaa. dhulbahante marka aad maqasho SNC waa Sool, Sanaag, Cayn, waa dhulbahantaa dagaalamaya. dhulbahanta weeye keligii, cid meel uga timi argagixiso iyo cid kale toona ma jirto. waa wiilashoodii oo ka dhiidhiyey. waa idin leenahay iyo annagaa maskaxda aad leedihiinba u talina, dhulkiina annagaa u talina. waa wiilal ka dhiidhiyey oo shaqeeyada maaha, min meel kale ka yimi maaha. waa nimankaa la garanaya, wiilkaygii iyo wiilkii kale aan adeerku haya, kii aan adeerku haya, kii aan adeerku haya weeye. arrintay ka dhiidhiyeen waxa weeye waa idin haysanaa oo annagaa idin xukunaa. markaa weeye wixii uu diiday Siilaanyo yaan kula doonayaa weeye wax laga dhiidhiyey. dhinaca kale caaqilka ayaa waxa uu ka hadlay hadal maanta uu warbaahinta ka jeediyay wasiirka warfaafinta Somaliland kaasi oo uu sheegay in deegaanada gobolka Cayn ay ka mid yihiin Somaliland sidoo kalena shacabku ay soo dhaweynayaan, balse caaqilka ayaa arrintaasi kaga jawaabay. marka waxay la tahay isba ka dhamaahe waxoogaa malaa ku danaysanayaan. wuu og yahay inay doonayo Laascaanood iyo Buuhoodle iyo dhulka inuu isagu leeyahay oo la xoreeyo. wuu garanayaa dan yar buu ka leeyahay, kuusaa ku leeyahayna wuu garanayaa inuu dan leeyahay. intaa u dhaafi maayo ninkaasi. sandullu ku iman sacafaarsan nacay 3 maalintuu qado dan buu iman, wuu arki doonaa. sidaasaa dhulkana annaga iska leh. dadka haddii qabiil ay noqotana qabiilba iska leh, hadday magac noqotana dhulbahanta iska leh. waxa weeye isaguna waa ka mid a. waxaan kula talin lahaa war hadalkaa ku ceebaynaya, boogta kugu reebaya, kaa saaraya siyaasadda, war hawl noqon. mar warfidiyeenadu ay weydiiyeen hadalkii warbaahinta uu ka jeediyey madaxweynaha Puntland Dr. Farole ayaa caaqilku arrintaasi soo dhaweeyey, isagoo tilmaamay in arrin mar hore loo baahnaa ay tahay midaasi. hadalkiisa waxaan u arkay wixii laga sugayey inuu ku hadlay. wixii laga sugayey
ee laga dhowrayey ee sanada laga sugayey inuu ku hadlay wuuna mahadsan yahay aad iyo aad baan ugu gabaadinayaa ninkaa waana arrintii ku beegnayd ee uu hore uga gaabiyey uu sameeyey wuu mahadsan yahay dhinaca kale waxaa maanta degenaansho aan badnayn laga dareemayaa deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen ee Hagoogan iyo Maygagle iyadoo dhinacyadii halkaasi isku dagaalay ay soo fadhiyaan ilaa iyo xilligan aysan muuqan saansaan uu ku baaqan karo dagaal labaad. Khadar Cawl Ismaaciil.